بسم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، وسؤال قف كستoo مسلم isweydiin karo oo dhulkan jooga, sidee bay u suurtagelaysaa inuu meeshana joogo diintiisana u ilaashado? qof kasta oo dhul uu qariib ku yahay taga, stranger ah, waxa hubaala in mashaakil tiro badani oo nololeed ka hor imanayaan. mashaakilku wuu sii adag yahay marka aad timaado ummad dhisan oo hadday tahay mabaadi'deed oo dhan haysata. innagu waxaynu u nimi halkan inaynu su-aalo runtii isweydiinaba habboon ku saabsan, waxaynu u nimi inaynu wax ku bedelano, mise waxaynu u nimi inaynu wax kororhsanno. inaynu wax ku bedelanaa dee waa fududahay. qofku hadduu rabo afkiisa, dhaqankiisa, diintiisa waxaba inuu dhiibo, bedelkana wixii uu helayo uu qaato, waa war la garto. mid kalena waxa weeyaan waxaagiina inaad haysato waxna ku darsatid. adigoo waxaagii haysta inaad wax kororhsatid. bulshooyinka iyo qofka fardiga iyo mujtamaca, haddii qofku waxa uu aaminsan yahay iyo culture-ku wato iyo dhaqanka iyo afka iyo ka bulshadu iswaafaqsan yahay, wuxuu dareemaa rayn iyo naxariis iyo deganaanshiyo. mashaakilku way ka yaraadaan. ولذلك buu nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa: man asbaxa minkum aamina fi sirbih mucaafan fi jasadih cindahu quutu yowmih fakaأnamaa xiizat lahu اdunya bxadaafiriha. qofkii ka soo dhex toosa ama kuwaa bariista fii sirbih ay fii mujtamaci, fii ahli, fii qowmi, dadkiisa qofkii kuwaa bariista isagoo nabad qaba, caafimaad qaba, waxuu cuno haystaa, kaa adduunka o dhan baa ku soo ururay. yacni qofkani wuxuu helay alamni nafsi walamni alcaqadi walamni الsixi walamni اlghadaa'i. yacni wuxuu u baahnaa ee noloshu ay u baahnayd buu hayaa. waxaana iswaafaqsan bulshadu u yimi ama bulshadu ka tirsan yahay, waxay aaminsan tahay iyo wuxuu aaminsan yahay baa iswaafaqsan. haddii qofku uu yimaado meel aanu dhaqanka, afka, culture-ka, diinta la wadaagin, waxaa adkaata siduu isu adjust gareeyo. waxaa adkaata wixiisiina siduu u haysto waxna u kororhsado. waxaa fududaata inuu milmo, dawabaan uu ku dhaco, ou dadka ka mid noqda fudud. marka ay dhacdo markaa in bulshadu waxay rumaysan tahay iyo waxa dhaqan u ah iyo nidaamkeedu iyo adigu wixii aad rumaysnayd ama diin u haysatay ama dhaqanku u ahaa iska hor yimaadaan, waa markaa markuu qofku dareemo algurba, waa markuu strangenimada dareemo inuu stranger yahay, waa markuu dareemo challenge inuu ka soo hor jeedo. waayo bulsho kastoo meel ku dhaqan waxaa la yaqaanaa waxay ilaalisaa identity ay bulshadu leedahay, waxaana ku ilaalisaa can طariiqi اlcilmi waاliclaami wاlqanuun. wasaaradda waxbarashadu waxay ilaalisaa bulshadan inay isku darto oo ay siiso identitygii bulshadu lahaa qofkan kusoo biiray inay siiso. iclaamkuna waa sidoo kale. mediyu
waxa uu sheegaya iyo wuxuu ka warramayo iyo waa dhaqan iyo culture iyo hidde iyo af ay dadkani leeyihiin iyo taariikhdoodii. intaa waxaa dheer haddii ay intaasi ku anfici weydo systemkaad ku qasbantay nidaamka guud alqaanuun system baa ku qasbaya inaad systemka raacdo. su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay meeshaa kaa gadisan sidee baad diin ugu dhexaysan kartaa? marka aad meel kula nooca joogtid majhuudka ama effortka iyo costkay kugu qaadanaysa inaad waxaaga haysataa waa wax fudud, waayo bulshadaad la nooshoo dhan baa dhan u wada socotaa. saa daraaddeed afkaa lumi maayo, dhaqankaa lumi maayo, diinkaa lumi maayo. waxoogaa un adigu is-ilaaliso midhmidhka qaldan wixiisa inaad ka tagto ayuunbaad u baahan tahay, laakiin systemka guud wixii aad rumaysnayd buu wadaa. marka inaad diintaada ilaashato, ilmahaaga ilaashatid, dhaqankaaga ilaashatid, awoodda aad ku bixinaysa iyo hantida aad ku bixinaysaa waa wax yar. markaad se timaadid meel aad intiiba kaga gedisan tahay waxay u baahan tahay wakti ka badan iyo hanti ka badan iyo effort ka badan iyo caqli ka badan aad ku adeegsato si aad waxaagii hore u ilaashato, u suurtoobi karto inaad waxna kororsato. sideedabana ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah. dadka dhulka ku nool intooda badan haddaad aqbasho yudiluuka can sabiili illah baa ilaahay tilmaamaya, jidkay kaa luminayaan. haddaba qofka halkan yimi waxaa la yidhaahdaa laba option ama laba doorasho qura, laba khiyaaro keliyuu haystaa. khiyaar waa inuu u diyaar garoobo sidii uu diintiisana u xejisan lahaa iyo wixiisa waxna u kororhsan lahaa. hadduu arkayo taasi inaanay suurtagal ahayn, khiyaar labaad ma jiro ee waa inuu meeluu wixiisa ku haysan kara tagaa. waxaa laga yaaba inaad tirahda halkaa dhib baa ka jirte. dunida gebigeeduba waa challenge intaad nooshahay, waa alibtilaa. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. dunida waxaad u joogtaa in lagu imtixaamo, laakiin hadday kugu xidhan tahay markaa imtixaanka nooca aad challenge garaynayso, challenge-ka aad rabto inaad qaadato, kanna waad qaadan kartaa challenge-ka aad jooga haddaad ka bixi karto. haddii aanad kan awoodi karin waa inaad qaadataa challenge-kii ada walba ka soo carartay oo nabad iyo dhaqaaliya cunno ku saabsisanaa. kaas sidii aad u manage garayn lahayd waa inaad waajahda, laakiin meel ka dhaxaysa ma jirto labadaa. wixii ka dhaxeeya waa dhimasho un. maxaa loo baahan yahay markaa inaynu haysanno teeni? ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa qisas tiro badan oo ku saabsan bulshooyin dunidan soo maray iyo siday u noolaayeen. bulshooyinkaa ilaahay ka warramaya qur-aanka kusoo qisaskooda ku soo naqliyey, qaar gaala ah iyo qaar muslimaba way lahaayeen. ummadaha ugu tirada badan leh qur-aanku uu ka warramo waxaa ka mid a dadka yahuudda la yidhaahdo. yahuudi waa bulsho taariikh dheer leh. waa dad xun iyo dad wanaagsan ba lahaa. dad wanaagsan oo badan bay lahaayeen saa qur-aanku ka warramayo, bale ambiye badan bay lahaayeen. nebiyo, nebi yacquub, nebi yuusuf, nebi sulaymaan, nebi huud, nebi muuse. ambiyadaa qur-aanka warramaya o dhami de waa familiga, waa bulshadaasi ka tirsanaya. dad wanaagsan way lahaayeen. aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kanuu biaayaatina yuuqinuun wajacalnaa minhum a'ima. ilaahay wuxuu leeya iyaga waxaanu ka yeelay a'imo aayaadka yaga, a'imo sabray oo aayaadkaaga yaqiinsaday oo dadka qudwa u noqday tusaale. dhanka kalena kuwa xun bay lahaayeen. ilaahay markaa qur-aanka wuxuu inooga warramayaa bulshada reer banu israa'iil ay idhaahdo qayb mar ka mida taariikhdoodii
ilahay wuxuu uhi waqaطacnaahum fi lardi umama waanu googoynoo dhulkaanu ku saydhinay baa ilahay yidhi qaطacnaahum fi lardi umaman minhum الصaalixuun وminhum duna dalik وbalownaahum bاlxasanaati والsayi'aati lacalahum yarjicuun dad wanaagsanna way lahaayeen baa ilahay yidhi dad xunna way lahaayeen waana la googooyey waa itixaamay baa ilaahay leeyo xasanaad iyo sayi'aadba wanaag iyo xumooy samaba waa lagu itixaamay lacalahum yarjicuun maxaa xaalkoodii noqday markaa waxaa qisaskaa laynoogaga warramayaa inaynan qaar ka midi ficladay sameeyeen inaynan samaynin ilahay wuxuu leeyahy markaa fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaab kuwaa waxaa gadaal maray koox kitaabka dhaxashay baa ilahay yidhi warithuu alkitaaba kitaabka way dhaxleen ya'khuduuna carada hada aladna waxay qaadanayaan baa ilahay yidhi subxaanaه wa tacaala noloshan gaaban wixii ka soo gaadha waa iska qaadanayaan xalal iyo xaaraan iyagoo aan u eegin oo wayaquuluuna waxay odhanayaan sayukfaru lana waa naloo dembi dhaafi doonaa wain yaأtihim caradu miثluh mar labaad haddii kii oo kale ku soo baxana ya'khuduuh baa ilahay yidhi waa qaadanayaan ilahay qoladan wuxuu ku tilmaamaya dhowr sifo kow kitaabka way dhaxleen bini aadamku wuxuu dhididkiisa iyo xooggiisa ku baxsado iyo wuxuu dhaxla ku helaa agtiisa way ku kala fudud yihiin bini aadamku haddii uu maalan ilmaha yar haddii xoolo looga dhinto inta badan waxaa dhacda inay maxay ku cayaaraan waayo umay dhididin iyagu laakiin qofku xoolaha uu shaqaystee ku dhidida ee xoog iyo naftiisa ku bixiyo wuu la jeclaabayo way adagtahay inay ka baxdo noloshoo dhan baa sidaasiya diinta dadka u dhintay ee naf iyo maalba soo siistay ee waxay u hijrooday saxaabadii nebiga iyo dadkani waa noloshooda dhan bay siisteen saawageed way ku adkaayeen laakiin dadka dhaxalka u helay sideenoo kale meelun baynu iskaga dhalanay dad muslimiini joogaan islaamkun baynu aabbayaasha iyo awowyadeen allahu naxariistee ka dhaxallay wax kasta oo inagu joogay ma jirin adnaa majhuud maynan gelinin qoladan waxaa lagu tilmaamay iyaguna inay kitaabka dhaxleen dhaxal bay ku heleen warithul kitaab laakiin dhaqankoodii maxaa ilaahay ku tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi waxay doonaan inta iska sameeyaanba waxay leeyihin ilaahay waa ghafuur raxiim sayufaru lana waa noo dambi dhaafi doonaa bini aadamku waa dhacdaa inuu gafo ilaahayna waa ghafuur raxiim hadduu ka soo noqdo toobad keeno jidka saxa qaada ilahay dembigiisa ugu dhaafaa laakiin qoladani caadadoodu waa maxay waa iska dhumbanayaan marka la dhaha war waa sideena insha allah ilahay baa noo dambi dhaafa bay leeyihin ilahay baa noo dambi dhaafay ma berrita hadday tiitimaadana waa la wadayaa that means dembiga waa la wadayaa rajada iyo amalka ah ilaahay baa dembiga dhaafi doonana waa la hayaabaa ilaahay leeyihi qoladan ilaahay wuxuu ku yidhi alam yu'khad calayhim miithaaqu lkitaabi an laa yaquluu cala allahi ila alxaq wadarasuu ma fiih waddaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun war kuwan miyaan ilaahay ballan ka qaadin baa alla leeyahy subxaana wa tacaala inaanay ilaahay been ka sheegin oo kitaabkan inay daraaseeyaan iyo waxa ku jira war daarta aakhira u faa'iido badan baa ilaahay leeyahy u khayr badan dadkii ilaahay ka cabsoonaya war miyaanay caqli lahayn baa ilaahay yidhi afalaa tacqiluun miyaan garashadu shaqaynayn baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idan gruub kuwaasaa lagu tilmaamay inay noqdeen qaar kalena waxaa la tilmaamaya والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كوا كتابك قبصة إلهي لي مسك وبتضعيف يبقى الاستعمال الوضع عربيد يعني هو واحد قبقبان يسواد حجين يسو مسك هو قبطي لكن مسك والذين يمسكون بالكتاب إلهي كوا كتابك قبصانية حجينية وأقاموا الصلاة صلاة أوغية إنا لا نضيع أجر المصلحين بإلهي مالو من النبا إلهي لي كوا السماها السبينية أجر كودلو من مايو إذن قصة إلهي وحين أقول شيء غير هرب إسرائيل لقوقويي سيدا إنو كلا فردني لو كلا فرديي إن إداد صالحة يداد حنبا لهايين وهلا شغير امتحان هذا وصومري بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
laakiin waxaa la tilmaamay gruubkaasi gruub inuu ka dambeeyey iyagu intay wax walba iska dhumbadaan diintoodii aan xejisanin ee amalka ah in loo dembi dhaafi doono un iska haystaa waxay doonaanna sameeyaan iyo koox kaloo ah kuwo kitaabkoodii intay qabsadeen xejistay oo salaadoodii oogay oo ilaahay leeyahay kuwa wanaagsanna ajarkooda lumin mayno idan waa labada wado qofka qariibka ah mid unbuu ku biiraya bulsho kaa badan markaad adigoo yar la joogto labadaa wado mid unbaad qaadaysaa su-aashu waxa weeyaan haddaba waa maxay wasaa'ilka inugu xejin kara diinteenna sidaynu u xejin karnaa waxaynu u baahannahay inaynu in yar dib ugu noqonno tajribadii saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi moxamed wadcigaynu ku loon lahay mid ka adag bay ku noolaayeen mid ka adag nebi maxamed isagoo keligiiya la soo diray calayhi salaatu wasalaam qof iyo laba iyo saddex baa rumeeyey dhul gaaleedna way deganaayeen meeshay deganaayeen markii waa dhul gaaleed madiinina waa dhul gaaleed marka gaalaa degan culture kalaa yaalla luqadooda isku mid bay ahayd laakiin caqiide iyo dhaqan ka gadisan kii jaahiliga bay haysteen sidee bay u dhacday inay saxaabada iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam ka hor tagaan oo ay diintoodii u xejistaan waxaan rabaa inaan in yar tilmaamno afartii suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegay qur-aanka culamadu waxay isku waafaqsanyeen afar suuradood baa ugu soo hordegay ayay inta badan tilmaamaan weliba afarta suuradoodoo wada dhan maaha mid walba qeybteeda hore waa suurat alcalaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة داس قيب طاهر وحكالو ينسو دكتي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آيات كاسي هرير وحكالو سو دكتي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلى الآيات ككسيحية وحكالو سودقي نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا آياتك waxay culammadu yidhaahdaan waxyigii koowaadee nebi maxamed ku soo degay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa godka markuu ku jiray laakiin maadaama uu nolol adag waajihi doono waxay yidhahdaan qaabka wax la ysugu bara tacliimka si qabow baa qofka wax loo baraa laakiin nebi maxamed markii lagu bilaabayey qaab adag baa loogu bilaabay malakul jibriil baa intuu qabtoo gelgelay ayuu iqra ku yidhi waxay culammadu yidhahdaan waxaa la taabsiinayey qimat lintibaahi wasaxwa waxaa soo socdaa wax fudud inaanu ahayna inuu xoog u soo jeesto dabeetana qur-aankan baa ku soo degay qur-aankani muxuu ka warramayaa waxay yidhahdaan aayaadkani waxay sheegayaan haddii lagu dhaqmo waa waxa sababi kara inay cidi mabaadi'deeda haysato ku dheganaato diinta inaad xejisato aayaadkani dhowr shay bay ka warramayaan midi waxa weeyaan kow waxay ka warramayaan qadiyat alcilm iyadoo laga yaabo carab inay jahli ku sugnayd aqoon inaan waxba ka jirin oo ay noloshoodu cayn ka ahayd cilmiguna inaanu qiimo badan agtooda ku lahayn laakiin wixii qur-aanka ugu soo hordegay masalada qalamka masalada kitaabada iyo akhriska iyo cilmiga iyo ku saabsan buu ahaa laba suuradood markaa nuun walqalami wamaa yasturuun waxaa lagaga warramayaa qalinka iyo waxa la qoro اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قضية العلم والقلم والسطور بالغ والرمى هاي علماء يدادن كو الجاهل وحبيس كما دفاعي كره دي الرباط دين تنين نحكي سنو
وإننا برناه قضية العلم بني آدم كوحة كوادة وسكود دافعة ومسألة العلم وحاند علمي ولا هين مدفاعي كرتيد وحاند قرنين مدفاعي كرتيد وحاند قرنين شبهات كاكو بدنية ولو شك قلينية وحاند قرنين أسئلة دتك كما جوابي كرتيد وحاند قرنين ما قرن كرتيد محاضو هيسطاه إذا أولى شيء أما شيء قوه الرأي نوبا هنا هدي إنه ربنا إنه ديننا هيسنا وين نقرنا وين نبرنا وين نقانو يالنا عقيدة دي وحي شيء يسو وين نقرنا ريسن كديه كومن سنس كديه وحكدم بيا وين نقرنا وين عقلي نوح وقاضا كرا نقطة وين سفي عنه فهمنا كسوامد كلبات آيات كان يكورم يا وحويان waxay yidhahdaan khayru difaac khayru wasiila lidifaac huwa alhujuum bay yidhahdaan wasiilada ugu fiican ee difaac loo gala waa inaad hujuum ama diyaar u tahay inaad wax iska dhicin kartid haddii adigu un lagu yeedho mabaadida kalun lagugu wado waad lumaysaa laakiin ilaahay muxuu nabi maxamed ku yidhi yaa ayuha almudathiru qum faandir kan isdadayow baa la yidhi kac oo dig وحكاه الرئيس سود كتاب من اقرأ يريوين كي النبي عليه الصلاة والسلام لحد بلاد كسعوني هذا وحا لغو بلا بينو كعو ديغو إذن إن دعوة سمينا إن ندتك كلا الدين تويرنا ووحا كان سنة يتين إن نحيشن كرنا وحا لغو يري مركا قم فانذر وربك فكبر ربي كان وينيه وثيابك فطهر مريها هاقية قلوب تادية كوريا هوسبا اسطاهر ريال والرجس فهجر حمها كجور كهجرود ولا تمنن تستكثر إخلاص لك عليه واحد بحين يسها من نشيغا وحلو يري مركا ولربك فاصبر وضضا إن أتقادانا مشاكل هي تشالنج عسوية يدنا الصبر بالليل waxaan leenahay qadiyada koowaad waa qadiyada ilm hadeen rabnayno diintan ku sugnaano xijino waa inaynu baranaa garanaa si fiican u fahmnaa waa yeel iyo wiil yarba keeda labaadna waa maxay waa inaynu iyada u shaqeynaa dadka gaarsiinaa inaguna isgaarsiinaa oo ah inaynu isku tahirno kor iyo hoosba xumahana ka hijroono ka guuro waxaasina waa inaynaga hadaan ilaahay dartii iyo ikhlaas challenge kaynaga hor iman doonana waa inaynu u sabirnaa kaasaa la faray bini aadamku hadduu shay culus qaado wuu daalaa hadduu challengeku ku adkaado wuu isdhiibaa laakiin qofka muslimkaa lama rabo inuu isdhiibo muxuu samaynayaa waa xidhiidhkaad ilaahay la leedahay adkee baa lagu yidhi haddaad rabto inaad ilaahay kaalmadiisa iyo gargaarkiisana hesho hadday dhibo ku qabsato maxaad ka fekertaa qofka bini aadamka markay dhibo qabsato maalan economical problem baa ku qabsaday dhaqaale dhib dhaqaale markiiba waxaad fekeraysaa wartalow xaggaad ula kacdaa waxaa kugu soo xaadiraya ciddii qaraaba iyo toliya asxaaba ahaydeen ee waxhaysataad isleeday waxbay kaa tari karaysaabaa markaaba madaxaaga ku soo xaadiraya marka waxaad markiiba tijaabinaysaa bal intaasi culayska inay kaa qaado inaad connection la sameeyo xidhiidh inaad ku wala samayso ilaahay wuxuu leeyahay haddii diintan culays aad dareentaan aniga xidhiidha la sameeya saa daraaddeed baa nebi maxamed waxaa lagu yidhi iyo saxaabadii yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil ilqur'aana tartiila habeenkii kac baa la yidhi nuskii ama intiisa badan ama in yar nuska ka yare habeenkii kac ilaahay xidhiidhkaad la leeday xooji waayo innaa sanulqi calayka qawlan thaqiila baa ilaha yidhi war culus baan kuu dhiibayaa baa ilaha yidhi diinkan inaad xambaartaa waa culays baa ilaahay leeyahy haddaba culayskaasi si u fududaado ilaahay kaalmayso ilaahay cibaadadiisa iyo ku-xidhnaantiisa iyo baryadiisa kaa kaalmaysa baa ilaahay leeyahy ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waطan wa aqwamu qiila
maalin oo dhan waina laka fi nahaari sabxan طawiila tasbiixso oo dikrigaaga badi watabatal ilayhi tabtiila waka suuradoo dhami markaa waxay tilmaamaysaa qaybtan aynu tilmaamaynaa haddaad aqoon diintiina u yeelataan oo ku qanacdaan isla markaana aad dacwa samaysaan oo dadka ugu yeedhaan idinkuna ay isdaahirisaan sabir baa laydinka baahan yahay haddii challenge-ku xoogoobo mar kasta ilaahay ku xidhnow baa la yidhi biyadihi malakuutu kulli shay isaga gacantiisa wax waliba ku jiraan allaha wax waliba gacantiisa ku jiraan ku xidhan baa la yidhi waxaan leenahay marka afarta suuradooda hore intaasay ka warramayaan saxaabadii si fiican afartan u fahmay ilaahay muxuu ku sifeeyey min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila mu'miniinta waxaa ka mida baa ilahay yidhi rag ka run sheegay wixii ay ilaahay ballan la galeen qaarna waa ku dhinteen iyagoo diintoodii haystay dhinteen qaarna waa sugayaan wax bedela kamay samayn diintoodii baa ilahay leeyay may bedelin ilahay wuxuu ku tilmaamayaa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi waiqaami الصalaati waitaa'i الzakaa yakhaafuuna yowma tataqallabu fiihi اlquluubu walabsaar waa rag baa ilaahay leeyay aanay ka mashquulinin tijaarada iyo bayca iyo dhaqaale raadintu ilaahay xuskiisa dhaqaalu ma dhaafiya baa ilaahay leeyay iyo salaada oogisteeda iyo zakada bixinteeda waayo waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo indhuhuba ay gadgadoomaan waxaan dhahdaa inta badan su-aalaha hadiyo goor la isweydiiye waxaa ka mid a meelahan marka la joogo shaqadii iyo maxaa la yidhaahdaa iyo salaadii baa isku beegmi weyday sheekh maxaa la yaha waxaa qiil loo raadinaya maxay shaqaduna dee iyadu isweydiin male inay xagga salaada laga helo fasax loo helo dhanka salaada ka soo baxa ama ilaahayna wuxuu ina leeyahay raggaa diintooda haystay astaantoodu waxay ahayd rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi waiqaami الsalaa duul aanay ka weecinin ama aanay dhaafinin tijaarada iyo xoolo raadisku ilaahay xuskiisa iyo salaada ogisteeda iyo zakada aanay dhaafinin idan waxaan leenahay kow afarta shay ama saddexda shay ee aynu nidhi duuduub ahaan afartaas suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegaa tilmaamayay waa waxa koowaad aynu diinta ku xijin karno waa tajribadii ay ka soo baxeen saxaabadii iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaan iyaba dhul gaaleed bay joogeene waxay diintoodii u xejisteen ee ay u faafiyeen maanta dhowrka 2 bilyan ay u haysataa qur-aankaasaa ilaahay ku sugay waxaa sheegaya